boqor buurmadow ma aaminsan tahay fikirka gooni isu taagga Somaliland iraadatu shacbi weeye anagu madax dhaqameedku ma goyno mowqifka siyaasiga siyaasiyiin baanu leenahay shacabkaanu raacnaa yes shacabkaygu aaminsan yahay waxa shacabkaygu aaminsan yahayna waan aaminsanahay marka waxay ka dhigan tahay inaad aaminsan tahay Somaliland inay gooni isku taagto dabcan waan aaminsanahay bal waxaad isqabadsiisaa marka inaad aaminsan tahay Somaliland inay go'do siyaasadii Soomaaliyana aad ka dhex shaqaynayso oo siyaasadii ku dhex jirto waxay isku waafaqaysaa shacbigaygu meel kastuu joogaa madaxda sarsare ee dalka ayaan wax ku leeyahay qodobka kale anigu fikirka ballaaran oo kalena waan aaminsanahay Afrika inay dawlad noqon kartaan aaminsanahay Afrika inay isu iman karto sida Mareykanka iyo qaaradda Yurub iyo Mareykanku ay dal qura u yihiin Afrika inay dal qura noqon kartaan aaminsanahay aan ku shaqeynay rag badan oo madax Afrika kamid ah aan wada aaminsanayn marka shacbigaygu hadduu ku qancona Afrika mid ka weyn baan aaminsanahay shacbigaygu hadduu ku qanco Somaliland marka hore waxaan ixtiraamayaa go'aankooda ay qaateen shacbigaygu ya hadday ku qancaan inay Soomaali la midoobaanna waxba kama qabo hadday la midoobaan Afrika la midoobaanna waxba kama qabo laakiinse waxa weeyaan haddii ay kala go'aanna shacabka Etoobiyana diga kilkana boqor baan u waan tagaa hawlahoodana waan ka shaqeeyaa kuwa Keeniyana waan ka shaqeeyaa kuwan koonfurta Soomaaliya joogana waan ka shaqeeyaa ka Somalilandna waan ka shaqeeyaa anigu wax xuduud iyo border aan leeyahay ma jirto dadkaygu meeshuu joogaba inan yar halkayga nooshay Yurub iyo Mareykan baan ugu tagaa kaga daba tagaa iyo aan ka shaqeeyaa danahooda qof kastana jinsiyadu leeyahay iyo suuradu leeyahay iyo deegaanku leeyahay baan ku ixtiraamaya kulana shaqeeyaa dadkuna hadduu Mareykan qaato jinsiyad Mareykana qaatana waa dadkaygii hadduu mid Soomaaliya haystana waa dadkaygii hadduu mid Somalilandna haystana waa dadkaygii iraadatu shacbi baan ku shaqeynaa anagu iyo qofku isaga ayaa leh go'aanka uu qaadanayo laakiin waad ogtahay Somaliland iyo go'itaankeeda iyo xukuumadda Somaliland meesha ay ka taagan tahay sidee u dhici kartaa waddan ka goonayso inaad siyaasadiisa hadana ka shaqeyso kuma aan oran waxa weeyaan runtii mala xoga dhalinyaranimada iyo yaraanta hadalka aan ku kala surnayn waxaan ku yidhi anigu shacbiga Somaliland mowqifkiisa iyo garashadiisa iyo go'aankiisa waan ku ixtiraamayaa kagana mid baanahay ta labaad wad la socotaa xukuumadda Somaliland markii hore labada gole ee baarlamaanka iyo guursidu go'aan bay soo saareen inaan Soomaaliya la hadli karin ba ka bacdi dawladda Siilaanya waqtigeedii waa la laalay go'aanka wada hadaladii baa dib loo furay Muuse Bixiye Farmaajo way wada hadleen haddii aan laba leeyahay dawladda Somaliland iyo Soomaaliya way wada hadleen waxayba ku sigatayba inuu haddii aan laba leeyahay madaxweyne Farmaajo soconaya Hargeysa noogu yimaado marka waxa weeyaan siyaasadda Somaliland way ogoshahay in lala hadlo Soomaaliya in la tago wax dhibaato ah ku jira ma jiraan marka waxa leedahay anigoo aaminsan Somaliland inay go'do inaan Muqdisho imaado oo siyaasadii ka shaqeeyana waa caadi shacabka Somaliland way aaminsan yihiin xukuumadduna way aaminsan yihiin in la wada hadlo dana ayaa iskaga kaaya xidhan internationally anaga cidna aqoonsatay ma jirto wali khaydkii Soomaaliya ayaanu isku haysanaa danihii baa naga dhaxeeya dhaqaalii baa naga dhaxeeya jinsiyadii iyo wada dhaladkii baa naga dhaxeeya xukuumaddeeduna waa aaminsan tahay shacabkeeduna waa aaminsan yahay in la wada hadlo oo wixii naga dhaxeeya laga wada hadlana waxa weeye wax dhibaato ay kuma jiraan farmaajaanu ba soo dhaweyn gaadhno in yar nagaga baqday inuu Hargeysa noogu yimaado aniguna waxa weeyaan madaxdayada waxa weeyaan iyo haddii aan laba leeyahay shacbigayga iyo go'aankay qaateenna waan ixtiraamaya wada hadallada ay Soomaaliya la fureen ee ogol yihiin in lala wada hadlo danaha laga wada hadlana waan ka shaqeynayaa odaygeedan ka mid ahay haddii taa laga soo guurana dadkan shacabkayga halkan yaalla inaan ka daba imaado hantidoodii baa taalla iyagii baa jooga inaan ka daba imaado oo haddii aan laba leeyahay xaalkooda iyo danahooda iyo amnigooda iyo siyaasadooda waxay ku jirto ka shaqeeyana ya xaq baa laygu leeyahay shacabkayga Kenya joogana nabadgelyo inay helaan horumar inay helaan laga shaqeeyo xaq baan u leeyahay waayahay xiriir noocee ah ayaa kala dhaxeeya xukuumadda Somaliland iyo madaxweynahaba xiriir wanaagsan baa naga dhaxeeya oo aan ku kala go'i karin oo daneed oo ummadeed baa naga dhaxeeya laakiin laga yaabee fikrada qaar iyo aaraahda qaar inaanay isu kaaya qaban waa wax dhici kara waana mid bini aadmiga dabeecadiisa ka mid ah laakiinse wixii danta guuda wixii danta ummadeeda waan ka wada soconaa waana ka wada hadlaa waana ka wada tashanaa rajo ma ka qabtaa inaad Hargeysa ku noqoto
si dhaqso ah baan ugu noqonayaa rajo ma ka qabtaa maaha waxa weeye si dhaqsaa baan ugu noqonaya marka diyaar ma u tahay wixii dadka kale ku dhici jiray markay Hargeysa ku noqdaan inay kugu dhacaan waxba ma igu dhacayaanba horaan Soomaaliya u iman jiray horaan uga noqon jiray wax dhibaato ah kuma shacbigaygu wuu yimaadaa wuu la macaamilaa ganacsi buu ku leeyahay madax dhaqameedkayga yimaada waxa laakiin dadka siyaasadda ka qayb qaata intay Muqdisho yimaadaan waxaan ogeyn marka Hargeysa ay tagaan in la xiro arrintaas walal kuguma hayso shacbigayga halkan degan baa siyaasadda ka qayb qaadanaya oo ku jira horaan uga qayb qaadanaya anigu siyaasaddan halkan ka qayb ahay oo aan ka qayb qaatay ma jirto kuwa siyaasadda halkan ka qayb qaata Hargeysa ma aadaan oo ognahay cafisay dalbadaan anigu wax siyaasaddan halkan xilla kama qabanayo xildhibaanna kama yihi wasiirna kama yihi xukun siyaasadeed iyo xil siyaasadeedna umaan soo doonan kamana qabanayo laakiin shacbigayga halkan jooga hadduu ganacsi yahay hadduu mid siyaasad yahay inaan la kulmo xaal ogaado wixii dhibaatada dhexdoodana wax ka qabto xaq baan u leeyahay maxaa isleedahay markaad noqonayso ma cafis oo kala dalbad doontaa may wax dambi ah ma gelin wax siyaasadana kama qayb qaadan waxa weeyaan si fiican oo wanaagsan aad arki doonto oo goobjoogta taa la soo dhaweyn doonaa aan u tagi doonaa uga degi doonaa wax cafisana ma qaadanayo wax sabab aan u qaataa ma jirto